kusoo dhawaada wararka caalamka. maanta waxaan diiradda saaraynaa xiisad aad u culus oo ka taagan bariga dhexe. xiisad u muuqata mid maraysa heer khatar ah. qaybta koowaad, sawir guud. saacadihii lasoo dhaafay xaaladda bariga dhexe waxay isku beddeshay mid aad u cakiran. iskoorimaadyo toos ah iyo weeraro isdaba joog ah ayaa sii kordhaya, iyadoo indhaha caalamka ay si dhow ula socdaan waxa dhacaya. qaybta labaad, weerarka Israa'iil falanqayn. wararka ugu waaweyn waxaa ka mid ah in Israa'iil ay duqeysay xarumo la xiriira gaaska oo ku yaala gudaha Iiraan. tani waa tallaabo aad u culus oo kor u qaadaysa heerka colaadda. warbixino soo baxaya ayaa tilmaamaya in weerarkan uu sababi karo khatar dhinaca deegaanka ah, maadaama xarumaha gaaska ay keeni karaan sun iyo wasaqow ballaaran haddii ay waxyeelo soo gaarto. waxaa xusid mudan daawada in hogaamiyaal caalami ah arrintan si kala duwan uga hadleen, iyadoo ay jirto hadal muujinaya in tallaabadan aysan si buuxda ula socon qaar ka mid ah xulafada Israa'iil. qaybta saddexaad, jawaabta Iiraan weerarka Qatar. dhinaca kale, Iiraan ayaa la sheegay inay bartilmaameedsatay xarumo gaas dabiici ah oo ku yaala dalka Qatar, gaar ahaan magaalada Rasulifaan. sida ay sheegtay shirkadda Qatar Energy, waxaa dhacay khasaare hantiyeed balse lama soo sheegin khasaare naf ah. si kastaba ha ahaatee, dhacdadani waxay si weyn u cabsi gelisay suuqyada tamarta caalamka. qaybta afraad, falanqayn qoto dheer. haddii aan si qoto dheer u eegno labada weerar, waxay muujinayaan isbeddel weyn. colaaddu hadda ma aha mid ku eg hadal ama dagaalo, balse waxay u gudubtay weeraro toos ah oo saameyn kara dhaqaalaha iyo deegaanka. xarumaha gaaska iyo shidaalka waa lafdhabarka dhaqaalaha gobolka. weerar kasta oo lagu qaado waxay si toos ah u saameyn kartaa qiimaha shidaalka, korontada iyo xasiloonida suuqyada caalamka. sidoo kale, haddii xarumahaas ay burburaan, waxaa imaan kara musiibo deegaan oo saameyn karta dalal badan oo daris ah. qaybta shanaad, saameynta caalamka. khilaafkani ma saameynayo oo keliya bariga dhexe. wadamo badan ayaa ka walaacsan kororka qiimaha shidaalka, carqalad ku timaada sahayda tamarta iyo khatar amni oo sii fida. dalalka reer galbeedka iyo kuwa gobolka ayaa bilaabay dadaallo diblomaasiyadeed si loo dejiyo xaaladda. qaybta lixaad, halista mustaqbalka. cilmu-qeybka Ilaahay keliya ayaa og, balse haddii daawada dagaalkan oo sii socdo xitaa hal usbuuc kale, waxaa muuqata inuu faraha ka bixi karo. tani waxay horseedi kartaa dagaal ballaaran oo gobolka ah, saameyn dhaqaale oo caalami ah, iyo xaalad amni oo sii fida. gunaana, xaaladda bariga dhexe maanta waa mid xasaasi ah, islamarkaana u baahan feejignaan caalami ah. maxaad ka qabtaa xiisaddan? ma u malaynaysaa inuu isku beddeli karto dagaal weyn? fadlan ku qor fikradaada kommentiga, hana iloobin inaad like, share iyo subscribe saarto channelka. mahadsanid. kusoo dhawaada wararka caalamka. maanta waxaan diiradda saaraynaa xiisad aad u culus oo ka taagan bariga dhexe. xiisad u muuqata mid maraysa heer khatar ah. qaybta koowaad, sawir guud. saacadihii lasoo dhaafay xaaladda bariga dhexe waxay isku beddeshay mid aad u cakiran. iskoorimaadyo toos ah iyo weeraro isdaba joog ah ayaa sii kordhaya, iyadoo indhaha caalamka ay si dhow ula socdaan waxa dhacaya. qaybta labaad, weerarka Israa'iil falanqayn. wararka ugu waaweyn waxaa ka mid ah in Israa'iil ay duqeysay xarumo la xiriira gaaska oo ku yaala gudaha Iiraan. tani waa tallaabo aad u culus oo kor u qaadaysa heerka colaadda. warbixino soo baxaya ayaa tilmaamaya in weerarkan uu sababi karo khatar dhinaca deegaanka ah, maadaama xarumaha gaaska ay keeni karaan sun iyo wasaqow ballaaran haddii ay waxyeelo soo gaarto. waxaa xusid mudan daawada in hogaamiyaal caalami ah arrintan si kala duwan uga hadleen, iyadoo ay jirto hadal muujinaya in tallaabadan aysan si buuxda ula socon qaar ka mid ah xulafada Israa'iil. qaybta saddexaad, jawaabta Iiraan weerarka Qatar. dhinaca kale, Iiraan ayaa la sheegay inay bartilmaameedsatay xarumo gaas dabiici ah oo ku yaala dalka Qatar, gaar ahaan magaalada Rasulifaan. sida ay sheegtay shirkadda Qatar Energy, waxaa dhacay khasaare hantiyeed balse lama soo sheegin khasaare naf ah. si kastaba ha ahaatee, dhacdadani waxay si weyn u cabsi gelisay suuqyada tamarta caalamka. qaybta afraad, falanqayn qoto dheer. haddii aan si qoto dheer u eegno labada weerar, waxay muujinayaan isbeddel weyn. colaaddu hadda ma aha mid ku eg hadal ama dagaalo, balse waxay u gudubtay weeraro toos ah oo saameyn kara dhaqaalaha iyo deegaanka.
xarumaha gaaska iyo shidaalka waa laf-dhabarka dhaqaalaha gobolka. Weerar kasta oo lagu qaado waxay si toos ah u saameyn kartaa qiimaha shidaalka, korontada iyo xasiloonida suuqyada caalamka. Sidoo kale haddii xarumahaas ay burburaan waxaa imaan kara musiibo deegaan oo saameyn karta dalal badan oo daris ah. qaybta shanaad saameynta caalamka. khilaafkani ma saameynayo oo keliya bariga dhexe. Wadamo badan ayaa ka walaacsan kororka qiimaha shidaalka, carqalad ku timaada sahayda tamarta iyo khatar amni oo sii fida. dalalka reer galbeedka iyo kuwa gobolka ayaa bilaabay dadaalo diblomaasiyadeed si loo dejiyo xaaladdan. qaybta lixaad halista mustaqbalka. cilmu-qeybka ilaahay keliya ayaa og, balse haddii daawada dagaalkan uu sii socdo xitaa hal usbuuc kale waxaa muuqata inuu faraha ka bixi karo. tani waxay horseedi kartaa dagaal ballaaran oo gobolka ah, saameyn dhaqaale oo caalami ah iyo xaalad amni oo sii fida. gunaana xaaladda bariga dhexe maanta waa mid xasaasi ah islamarkaana u baahan feejignaan caalami ah. maxaad ka qabtaa xiisaddan? ma u malaynaysaa inuu isku bedeli karto dagaal weyn? fadlan ku qor fikradaada commentiga, hana iloobin inaad like, share iyo subscribe saarto channelka. mahadsanid.